السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ داود يالدقيستيال كسو دوادا برنامجكي عيارها وأن ألعب halkan idinku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha falaqaynta ciyaarihii dhacay iyo alaaba waxyaabaha ku cusub kubadda cagta. Caawa waxaan idin hayaa warar badan, xogo badan. Soo dhawaada asxaabta mar labaad. Xulkii Algeria oo ku guuleystay koobkii qaramada Carabta, Arsenal oo badisay, Barcelona oo fakatay. wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga iyo waxyaabo badan baan halkan idinku haynaa. Asxaabta intaan barnaamijka guda gelin fadlan subscribe noo saara, nagu caawiyo like iyo share-ta. aan ku bilaabo kooxda Arsenal lama joojin karo kuwan yaga wala Manchester United wala West Ham wala Tottenham wala Everton kaalinta afraad meel bay saaran kuwan. caawa ciyaaro badan baa dib loo dhigay Ingiriiska sabab la xiriira fayraska corona. waxa ciyaaray kooxda Arsenal iyo kooxda Leeds United. Leeds United waxa ay koox xooggan sanadkii hore laakiin sanadkii iska galab kuwaas. Arsenal waa badinaysa. Arteta ciyaarihii ugu dambeeyay isagoo meel fiican buu kooxda ka soo qaadaya. 32 dhibcood bay marka marayaan oo kaalinta afraad iyagu waxay jisanayaan. caawa waxay la ciyaareen kooxda Leeds United 4 gool bay ka kiciyeen. goolalka ka kala yimi Gabriel Martinelli saqiirka reer Braziliga 2 gool. Bakayoko Saka iyo maxaa loo yaqaan ciyaartooyga isna yaray saqiirka Ingiriiska Smith Rowe. goolashaas oo ay ka caawiyeen Martinelli, Lacazette iyo maxaa leedahay Xhaka, halka ay Smith Rowe iyo raacsadeen goolasha kale Bakayoko Saka. Leeds United waxa goolka madaga u saaxay ciyaaryahanka reer Brazil garabka ciyaara Rafinha kaasoo rikoor u dhaliyay. Arsenal waa badinaysa. Mikel Arteta koox weyn oo adag buu dhisayaa, kuwaasoo iminka xataa loo arkay inay ka maarmeen weeraryahankoodii ugu muhiimsanaa ee Emre Aubameyang. 32 dhibcood ay kaalinta afraad ku xijisanayaan caawa. Arsenal waa badinaysaa. waxaan leenahay koox xooggan weeyaan. ha iska qayliyaan kuwa mucaaradka ah oo yiraahdaan Arsenal meel gaari mayso. waa reer Manchester maanta waa ka sarreysaa. haddana inta Arsenal kaga gudubno, Barcelona iyaduna waa iska galab kooxda Xavi Hernandez wax weyn uma soo kordhintii uu tababaraha reer Isbaaniya uu qabtay hogaankii halyeeygood hore kabtan Xavi Hernandez. 2 iyo 3 waa ay caawa ku badiyeen dirqi 85 daqiiqo ayaa saqiirkooda Eric Gonzalez uu goolka saddexaad u dhaliyay. goolalka kala yimi Varane iyo Pablo Gavira isla markaana kooxda H baa 2 gool ka daba keentay. dirqi bay kuwaas ku fakanayaan. kaalinta 7aad ayay fadhidaa Barcelona. koob iyo tartan iyo waxaas ma jiraan wax la haweysanaya. waa kaalinta afraad ma geli karayaan bal insha Allah way eegi doonaa sanadka iyo maxay tahay seasonka dambe bal inay meeshay gaaraan. xubinteena ugu muhiimsan aan soo qaadano waa Algeria. waa lama joojiyaasha iyagu championska Africa sanadkii hore waa ogeyn. waxa ay ka qaadeen Senegal iyo xulka saaxiibada Mane ayaa gool iyo eber Baghdadi ka qaadeen. maantana 2 eber bay ku khaarijiyeen xulka Tunisia. halkaasoo koobka qaramada Carabta uu ka dhacay wadanka Qatar oo lagu diyaar garoobayo koobka adduunka 2022. waxay haayeen 2 xulo aad u xooggan xulka Algeria iyo Tunisia. waxay ahayd ciyaar adag oo ay waxba la isku harin. 90 daqiiqo waxay ku dhaceen eber iyo eber. waxaa loo baahday in lagu daro extra ama 30 daqiiqo sida loo yaqaan extra-ga. markii ay marisay 99 daqiiqo waxa goolka koobaad u dhaliyay xulka Algeria Amir Soyoucho. boom kubad baahid cajiib ah oo meel fog ka tuurtay. waxa goolka labaad u dhaliyay xilli uu la ciyaar dhaafsay bahay. xilli lagu jiray 125 daqiiqo ayaa gool hayaa xulka Tunisia waxa uu soo galay madax. isla markaana kubad tuuriya ah oo goolka oo maran waxa dhaliyay ciyaaryahan Yassine Behrami waa garanaysan waa inuu soo ciyaaray sida kooxda West Ham, kooxda Bordeaux, kooxo badan oo adduunka kamid ah. halka haddaan kaga gudubno xulka Algeria waxaan leenahay hambal Algeria waa championka Africa, dhanka kale waa championka Carabta. wala maxraas wala ciyaaryahanno waaweyn oo ka ciyaara Ingiriisku waa wada maqnaayeen. haddana waxa aad aragtaan bay sameynayaan. dhanka suuqa kala iibsiga haddaan soo qaadano intaan halka ka bixin waxa iyaduna kaalinta labaad soo gashay xulka wadanka Qatar, kuwaasoo iyaguna kaalinta kaga guuleystay 2 rikoodhayaal xulka wadanka Masar ama xulka Faraacinta. walow ciyaaryahanno waaweyn sida Mohamed Salah ay ciyaareen xulka Masar. dhanka wararka suuqa haddaynu eegno kooxda Barcelona waxa la leeyahay waxay dhamaystirtay weeraryahankii ugu horeeyay ee suuqa January. 34 jirka Manchester United iyo xulka Uruguay
Edison Cavani ayaa la leeyahay imika sababo la xiriira in Ronaldo uu joogo kooxda sidoo kale dhaawacyo daashadeen ayaa ugu biiraya oo ogolaaday baa la leeyahay inuu ku biiro Barcelona marka wargeysyada waddanka Spain waxay qorayaan inay kooxda Barcelona ku sii dhawaanayso dhamaystirayso saxiixa Cavani waa eegi doonaa bal wuxuu kusoo kordhiyay kooxda iska galabgalabka ah ee Barcelona ma aha imika Barcelona naqanay dhanka kale waxaa la leeyahay kabtanka kooxda Arsenal ee imika kabtannimadii laga qaaday Emre Aubameyang kooxdu waa fasaxaysa baa la leeyahay bisha January kooxo badan ayaa doonaya sida kooxda Man City oo kale doonaysa reer England sidoo kale waxaa doonaysa kooxda oo aad u doonaysa kooxda Barcelona marka waa eegi doonaa halku dambeeyo ugu dambeyntii tababaraha Liverpool Jurgen Klopp waxa uu sheegayaa inaanu ka hadlayn oo aanu wax waraa weyn aanu ka haysan isla markaana aanu wax waraa ka bixinayn xidigaha la leeyahay inay baxsadka ku jiraan sida August Chamberlain iyo David Origi marka wuxuu leeyahay anagu wali waqti baan haysanaa oo maxay tahay waqti weyn ayaa hadhay oo bilo ayaa hadhay ilaa xilliga dambe ayaa hadhay marka hadda ma cadeyn karayna buu leeyahay kaliya waxaanu focus ka saaraynaa diiradda buu leeyahay kulamada aanu ciyaari doono inta ayaan kusoo gabagabeynayna xubinteennii habeenimo